والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waa idin salaama bahda saxaafadda waa maalin aan rajaynayna insha Allah inay noqoto noo hogaamiso maalin khayr badan. waxaan rabaa marka hore inaan ugu hambalyeeyo insha Allah musbaqan doorashada wixii la soo jiitaba maanta inaan bari u dareeri doono doorasho insha Allah tabaaraka wa taala. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay noqoto doorasho natiijadeedu ay keento isbedel dhinaca fiican ah oo horumar iyo nabad iyo magacii shacabka Soomaaliyeed oo mar kale soo laabto. yaan rajaynaynaa in 4 sano soo socota iyo waxa ka dambeeyay Ilaahay nooga dhigo 4 sano oo dawladnimada Soomaaliya ku dhisanto ku xoogaysato. sidaan wada ognahay baahi badan waxa loo qabaa isbedelkaas oo nolosha dadka Soomaaliyeed ee gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba saameyn ku yeesha. waxaan xaq u leenahay sida ummadaha kale inaan helno nabad iyo horumar. waana wax anaga nagu xiran di mataqaanaa intaan Ilaahay tala saarno aan shaqadeeda qabanno. processku maadaama uu muddo dheer soo socday waxaan nasiib wanaagan in la joogo maanta meeshii biyo dhaciisi. waxaan Ilaahay ka baryaynaa marka in biyo dhacaas uu noqdo biyo dhac fiican, natiijo ummadda wada riyaaqdo iyo guul ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba ay wada shilsadaan. intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan doorashada wax yar ka ilaa waxaan jecelnahay inay noqoto doorasho xor ah oo musuqmaasuqa uu yar yahay. musuqmaasuqa waxa ila tahay inaan la weynayn laakiin inuu yar yahay inta hartay aad loogu dadaalo. processkii waxaan ognahay dhammaantiisba wuxuu ku jira gacanta dawladda. marka inta yar oo ku jiray guddiga doorashooyinka iyo guddoonka baarlamaanka runtii rajo badan oo nagu abuuray. waana ku qanacsanahay hogaankooda. waxaan u rajaynaynaa inay ku guuleystaan inay noqoto doorasho runtii kasabta kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan uga gudbo fariinta xildhibaanada iyo aqalka saraba. waxaan rabaa mar kale inaan codsigayga u jeediyo inay doortaan anoo ku qanacsan inaan ahay qof ku habboon ama mas'uul ku habboon marxaladda hadda la joogo. sida hore aanu ballan qaadana ka shaqay doona amniga, xoojinta dawladnimada, wadajirka shacabka Soomaaliyeed iyo horumarkooda iyo madax banaanidooda. marka waxaan leeyahay xildhibaan fursadda qaaliga ha dhumin. go'aanka aad qaadanayso waa go'aan mas'uuliyadeed. marka dooro cid mas'uuliyadda la filaayo inay hogaamiso u qalanta ama ku habboonaan dhaho. waxaan rabaa inaan wax ka ilaa ayadana arrinta abaaraha oo runtii walaas badan ku haysa dalka. marka mar kale dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga iyo dawladaha caalamka runtii gacan ka soo geysan jira weligood mar kale waxaan leenahay waxaan idinka codsanaynaa inaad soo gurmatiin shacabka Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa in shacabka Soomaaliyeedna Ilaahay gargaarkiisa ay helaan, iskuna tashadaan, kana gudbaan marxaladda adag. guul iyo horumar insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.